waxa lagu heli karaa waa qaran in qaran dhisan ayaa dadkiisa daryeeli kara agoontiisa daryeeli kara naafadiisana u gargaari kara haddii aan la helin waa wax walba meeshooda inay ku noqdaan ayay tegaysaa waxaad ogtihiin dowladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarahana uu ka yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waa ogtihiin ugu horeyn waxay ahayd dowladdii maxaabiisteenna carruurteenna dibadaha ku xirxiran kuna dayacan dib u soo celis lagama yaabo qabiil Soomaaliyeed oo hal cunug oo maxbuus dunida Soomaaliyeed ku carruurta Soomaaliyeed kamid ah ama da'yarta Soomaaliyeed kamid ah qabiil Soomaaliyeed oo soo dayn kara ma jira waa maya haddii shanta qabiil Soomaaliyeed oo la isku daro ma soo dayn karaan waa maya dowlad goboleed soo dayn kara male xisbi gaar u soo dayn kara male awood dowladeedaan lagu soo deeyay waana madaxweynihii ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay oo gartay inay ka bilaabaan kuwa gudaha joogana ay daryeel u fidiyaan waxaana hortiina laga qiray iyadoo budget iyo miisaaniyad iyo soo kabasho dhaqaale aan ku jirno haddana gunnada iyo mushaharka iyo miisaaniyadda loo qoondeeyey inay ka bixiyaan saas daraaddeed waxaan haysanaa ilaa wax garad wax noogu dar waa aragtida madaxweynaha horumarinta dhalinyarada iyo carruurta ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre sidoo kale annagana ra'iisul wasaare ku-xigeenka fadhiya aragtidaas iyo qorshahaas iyo barnaamijyadaas aan ku shaqeynaa sanadkii la soo dhaafay waxyaabaha noo qaabsamay taliyaha hadda jooga iyo taliyihii ka horeeyay Xuseen wax badan baa noo qaabsamay waad aragteen asbuucii soo dhaafay in ciidamo cusub oo usluub ah la qoray la dhaariyay ay ku soo biireen ciidamada usluub waa guul weyn oo ciidanka usluubka gaaray madaxweynahana wuxuu ballan qaaday in la sii qori doono kuwa kale waa guul weyn waxaa kale noo hirgalay in aan soo celino dowlad ahaan maxaabiis fara badan oo wasiirada hadda sheegtay qaar ka mid ah waxay ku jiraan xabsigan dhexe ay ku jiraan si fiican baa loo soo dhaweeyey halkan ay ku jiraan walaalahooda markay u imaadeen aad iyo aad bay ugu farxeen kuwa kalena insha Allah haddii la keeno xabsi inaan u hel yaan rajaynaynaa waxaan ku ballansanahay hadda aan dadaalkeeda ku jirna dowlad goboleed kasto in xabsi weyn laga dhiso ololahaasna waa socda taliya marka arrintaasna kulay arrin aad initiative-keeda horena u lahayd haddana aan ku guda jirna waa guul la gaaray waxaa kale noo hirgalay taliskii usluubta asalka ahaa in dib loo furo loo dhiso 27 sano kadib oo la furay hadda shaqaynayo taliyaha naftiisa marmar inuu laga yaabo meesha inuu guuro hadda marka waa guul weyn wey taliskaas furitaankiis faa'iidada ku jirtay waa maskaxdii taliska usluubta meel kasta oo joogo maskaxa haddii la helo jirka kalena wuu hagaagayaa marka maskaxdii hadda way diyaarsan tahay waxaana rajaynaynaa dowlad goboleedada inaad meel ugu diyaariso markii wasiiradooda iyo taliskooda imaado si ay u dareemaan inay joogaan caasimadooda waxaa kale noo hirgalay in dhagaxa dhigno meelo badan in laga dhiso xabsi baydhawaa ka mid ah horeyaa loo dhigay galmudug haddana insha allahu ayadana waan ku rajaweynaynaa in la dhiso hirshabeelle waa dhagaxan soo dhignay ayadana insha allahu dhaqaalahan u raadin hayna
puntland horey ugu dhisanaa ayagana waxay u baahan yihiin xabsiyo cusub in loo dayactiro oo khaas ahaan boosaaso sidaan u malaynayo jubbalandna sidaas oo kale maxkamada hadda loo dhisay haddana xabsi inaan u helno ayadana waan rajaynayna waxaa muhiim ah marka cadaalada inay gaarto meel kasta oo dalka ka mid ah tuulo degmo caasimada dowlad goboleedyada caasimada federaalka marka inay gaarto cadaalada marka in maxaabistii la helo waxyaabaha aan aad iyo aada ugu naxay meelo qaar dalka ka mid ah qofka markii la xukumo in loo waayo meel lagu xiro oo la yiraahdo guriga iska joog your house arrest oo kale marka arrin aad iyo aad murugo u leh marka in wax laga qabto loo baahan yahay xarumaha aqoonta dabcan in la horumariyo taliyaha sheegay madaxweynaha hadduu ballan qaaday mid inuu mas-uuliyadii qaatay gobolka banaadirna rajo weyn hadda muujiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenkii ani waxaana naga rabaa marka dhinaca silsilada cadaaladda boolistii door bay leeyihiin doorkooda inay ka soo baxaan si hufan ugu soo baxaan musuq maasuqna ka fogaadaan xeer ilaalintii sidii oo kale door ay leedahay doorkeeda markii loo keeno galka dacwada inay keesas u soo ogaan si xaq ah cadaalad ku jirto sharciga waafaqsan maxkamadii la keeno maxkamadihiina markii la keeno in ayaguna shuruucdii raacaan xukunkii saas ku gaaraan taas markay lasoo gaaray kadib qofkii asagoo xukun sharcigii u hoggaansamaya xabsigan la keenayo xabsiga marka la keeno marka wuxuu u baahan yahay in daryeelkii oo xabsiga ku lahaa la siiyo xuquuqdiisa la ilaaliyo weliba ka faa'iidaysto xabsiga waxaa jira hadda iskuul oo lagu tababaro aan rajaynayno wasaaradda tacliinta oo ay qaataan shahaadooyin markay ka baxaan taliya in aada ballaarisid xarumihii kale oo maaragtay warshadaha iyo beerihii iyo dhulkii oo ay usluubta leeyihiin waxaana waajib nagu ah marka hantida wasaaradda cadaaladda iyo taliska usluubta uu leeyahay federaal iyo dowlad goboleedadaba in la tirakoobo la ogaado la ilaaliyo ayadana waajib anagana saaran wey looga faa'iidaysto kali taliska usluubta iyo danaha guud haddii loo baahdo oo madaxda qaranka ogolaato marka wax badan baa na horyaala sanadkan mashruuc fara badan baa noo diyaarsan insha allah waxaan rajaynayaa inay arrimahaas dhan noo hirgalaan ku dheeran mahayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka nala joogo inta kale asagaa ku dari doona ra-iisul wasaare ku-xigeen kusoo dhawaa adoo mahadsan shacabka iyo aqalka sare gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir iyo marti sharafta kale iyo dhalinyarada maanta aynu u dabaaldegayno xafladda 48 guurada aasaaskii xarumaha daryeelka agoonta iyo samoolka iyo bahda saxaafadda dhammaantiinba waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu run ahaantii farxad weyn bay noo tahay dhammaanteen inaynu maanta u dabaaldegayno aynu daah furaynana mar labaad xarunta agoonta ay la soo wareegtay taliska asluubtu waxay tusaysaa horumarka dhinaca nabadda aynu ka gaadhnay iyo in aynu maanta u fikirayno inaynu agoonteenna da'yarta saboolka iyo darbi jiifkaba u fikirno xarumihii u samayno aad arkaysaan dadaalka la sameeyey iyo noloshii iyo quruxdii iyo aqoontii ka muuqatay carruurtii halkan lagu soo bandhigaynu arkayno waxaynu ku shaqaynaynaa siyaasadda madaxweynaheennu inagu hagaayo oo uu hormuudka inoo yahay in loo gurmado dadweynaha Soomaaliyeed ee tabaalaysan guud ahaan caalamka loo gurmado da'yarta iyo beelweynta Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku tabaalaysan waa arkaysaan inuu hormuud inoogu yahay xarunta agoonta Afgooye inuu bixiyay kharashkii nolol maalmeedkii ku baxayay bil kasta
taasi waxay tusaysaa tusaalaha wanaagsan ee xukuumad iyo dowlad iyo gobol iyo qaran uu hormuudka madaxweynuhu inoogu yahay xukuumadda federaalka Soomaaliyana taasay ku shaqaynaysaa waxaan ugu hambalyeynayaa taliyaha ciidanka asluubta sida wacan iyo kaalinta muhiimka ee uu kaga jiro mar walba dib u dhiska qaranka xafladani xigtay waxay ahayd xil wareejintii oo markii ugu horreysay Bashiir aanu isbarano oon wada shaqeyno iyo waxqabadkii uu soo bandhigay maantana waxaynu arkaynaa qorshe shaqooyinka ballaadhan ee uu qaban doono oonan ku niyad samahay qarankuna ku niyad saman yahay dhammaan inuu ka madha dhalin doono ilaahay idinkiisa annaguna gacan baanu ka siinaynaa waxaan u hambaleynayaa mar labaad gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ballan qaaday in uu miisaaniyad u qoondayn doono tabarucaadka uu ku biirinayo sidii ay u kafaalo qaadan lahayn nolosha xarumaha agoonta iyo saboolka xafiiska ra'iisul wasaaruhu taliye dhawaaqaagii waa maqlay waa soo dhaweynaynaa waanuna ballan qaadaynaa inaanu kaala shaqeyno haddii ilaahay yidhaahdo taliyaha waa iswaraysanay waxaa kaloonu kaala shaqayn doonaa taliye in miisaaniyad loo qandeeyo oo ay budgetka qayb ka yeeshaan haddii ilaahay yidhaahdo miisaaniyadda waxaan doonayaa anigu khadar ahaan shakhsi ahaan waxaan anigu shakhsi ahaan anoo ka faa'iideysanaya munaasabadan 26 Maarso aynu ku jirno bisha Maarso aan ballan qaadayaa mushaharkayga bisha Maarso inaan ugu deeqo xarumaha agoonta iyo saboolka wasiirka cadaaladda ayaa ina xasuusiyay xadiis saxiixa oo nabigeenu subhanahu alayhi salatu wasalaam uu ku sheegay ana wa kaafilul yatiim ka haatayn fil janna ama sida midba ka yahaydba culimadu sida ay noo sheegeen taa macnaheeduna waxay tahay in lagu tartamo dhaqaalu waa inaga baxaa kharashku waa inaga baxaa waxyaabo kale inaga baxaa in lagu tartamo in la kafaalo qaato la taageero agoonka waxaad ka fikirtaa ilmahaaga oo waqtigaagii gaadhay oo baxday adigu maxaad fili lahayd sidee inuu noolaado kaalintee baad jeclaan lahayd inuu ku jiro taliya waa kuugu hambalyeynaa shaqada wanaagsan ee adiga iyo ciidanka asluubta wadaan madaxweynaha xukuumadda mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ee maanta xafladan kaagala soo qayb galay iyo dhamaantay waa ku garab taaganahay waanu kula shaqeynaynaa haddii ilaahay yidhaa aamin baynu joognay waa inoo xidhantay xafladdu waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh